العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد dhibaatooyinkii markay dacwadu bilaabatay ay ku bilaabeen nimankii reer Quraysheed nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisa marka mayna gaadhin wali qaybtii saxaabada ka hadlaysay laakiin waxaan ku dhex jirnay qaybtii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo dhibaatooyinkii loo geystay lagaga hadlayay waxaa inoo dambeeyay qoyskii reer Abu Jahal isaga iyo islaantiisii iyo wixii ay u geysteen nabiga sallallahu alayhi wasallam iyagoo u kala hadhin ayaa inoogu dambeeyay waxaan soo gaarnay marka qaala ibn Isxaaq wuxuu yidhi kaana waxay ahaayeen annafaru kooxdii aladiina kuwaasu yu'duuna rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam nabiga dhibi jiray fii beyti gurigiisa ku dhibi jiray waxay ahaayeen kooxdaas Abaa Lahab والحكم ابن أبي العاص ابن أمية وعقبة ابن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي وابن الأصداء الهذلي وكانوا وحيهم كل جيرانه النبي يدرس في سيئة صلى الله عليه وسلم معنى الرجاء صفرها بضن أيها وحي أهايان كوح دي النبي يدرس جرتي ولما تدعو بيسن جرتي فيقام جرتي وأضيال بضيهم تقريبا كواحد عطيه مركة أهايين درسنا ولا أهايين والروح هدو كافو جاي كادر بسينه وحوقع حق الديجانك مرمر بكيس إناس كان نغط قشوال غيام لكن هدو درس كاجي إنه كل وانا وقت رجله حوقع وكأذك هاي هدو كادر بسين لم يسلمون إسلامين منهم حق أحد روحنا كما إسلامين إلا الحكم من أبي العاص مويان ninka un baa ka islaamay intoodaasba waxoodii kale gaalnimo ku dhinteen fakaana wuxuu ahaa marka axaduhum midkood wuxuu ahaa yadraxu mid sida calayhi nabiga dushiisa wuxuu ku tuuri jiray raxima shaah rida yani raximkeeda rida macnaha waxa weeyaan mandheerteeda iyo uurkeeda iyo waxyaalahaas macnaha ku tuuri jiray walxaal huwa nabigu yusalli uu tukanayo sida mandheerteeda iyo uur ku jirteeda intay soo qaadaan bay ku tuuri jireen nabigu tukanay وكان وحو أحدهم midkood يطرحها متورا أيها يعني رحمك أوسكاس يوحات uur ku jirta wuxuu tuuri jiray في برمة النبي derigiisu ku tuuri jiray إذا نصبت markii la taago deriga lahu nabiga loo taago deriga marka inta dhardhaarada la saaro oo wixii lagu karin lahaa lagu rido ayay intay soo qaadaan yay uur ku jirtii neefafkii la qashay iyo mandheertoodii wixii intay soo qaadaan bay dheeri kaga ridayaan waa cuntada reerka uu ka samaysay wax حتى اتخذ إلا أكسميستي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النبي أكسميستي يعني حجرا لنح أكسميستي ميل ناحية ليستطير سوق قرية به سجى منهم حقه السجى قرية إذا صلى مركز قرية حجرا هذه اللي هذا حجر من ناحية نوالي يعني لنح نوالي ميل لنح والجونية وحكلوا لي هذا حجري مركب معنا وحوي الله وصله هذا دي الله وصله وحكوا لي هذا يعني الحضن والكنف نوالي يعني ماشي الروح وكبر بارئ يعني وحوي الدكسيت كوكر أيضا نوالي يعني مركب على قولة مال يرى يعني واب يرى أو قرصون أو دين عبو النبي صلى الله عليه وسلم عليه si ugaga dhunto oo salaadiisa markuu tukanaya halka isugu qariyo fakana wuxuu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu ida tarafu markay tuuraan calayhi dushiisa dalika al-adha qashinka markay dusha ka saaraan yakhruju mid baxa ayuha nabi bihi qashinka ayuu la bixi jiray cala al-uudi qori dushi isagoo qori intuu saa ugu qaado qorigii uu dusha ka saaran yahay qashinkii buu banaanka ula bixi jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam فيقف ويستاجر به قشن كاس أيو لا يستاجر على بابه الباب كيس لا يستاجر سو قشن كي معناه قري كون أيو الباب يستاجر ثم يقول مركب في أورنشري يا بني عبد مناف يا عبد مناف أي جوار هذا وأدرس كيكني يعني الدرس لماذا من حيث
maxay tahay derisnimada noocan macna sidan derisnimada la isu dhibayo derisnimo xumadan sidani maxay tahay thumma yulqihi markaas nabigu tuuray sallallahu alayhi wasallam fi tariiqi jidku ku tuuray yani guriga intuu ka soo saaray iyo meesha lagu tuuray oo uu tusodad ayagana derisnimada ay macna wax way sameynayaan iyo dhaqan xumadooda uu tilmaamo iyo markaa kadib jidka iskaga tuuray jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam wazdada wuxuu la siyaadey عقبة بن أبي معيط وازداد وكرصدي عقبة بن أبي معيط منك ليلة في شقاوته نردردي يوخفتي حمان معناه الرجل ويكربت سلام حمان يبيد النبي صلى الله عليه وسلم حمان اللي ما هو كربت سلام وين السنين منك مركا عقبة بن أبي معيط ليلة أيام مركا وحاد يسوي وحيل إرادي أو كرصدي قول دردي iyo shaqinimadiisa iyo qubtigiisa iyo xumaantiisa macnaha wuxuu ahaa raggii gacan weyn ka geystay in nabiga sallallahu alayhi wasallam la dhigo faqad rawaa wuxuu wariyay al-Bukhari wuxuu wariyay can Abdullah ibn Mas'ud wuxuu ka wariyay radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam nabigu kaana inuu ahaa nabigu yusalli midkada cinda al-bayti kacbada agteedu nabigu ku tukanay maalmaha kamid wa Abu Jahl والحال أبو جهل إيه وأصحاب له أبو جهل إيه قل يا صاحبي أنا جلوس أي فرفديان كعبد النبي كنت كنه أيضا أبو جهل إيه أضيال أي صاحبهين ماشى أي فرديان أو قلبتي ماشى أي معنى وحوي فرفديان إذ مركا أيا قال وحي هذا بعض قاركوت أيا لبعض قارك كان وحي كلهم أيا جماعة الله الله وحي في هذا أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان كنبا كيري geeli ree bani fulaan geeli ree hebel mandheertoodii geeli shalay la qalay ee ree hebel mandheertoodii yaa keeni bay dheh halkaas u jeediya waa kuma ninka nin rageedka ee mandheertii geeli shalay la qalay ee ree hebel soo qaada ayukum kineba yajii'u la imaan oo keeni bisalaa jazuuri bani fulaan ree hebel geeloodii la qalay mandheertoodii yaa keeni oo macnaha waxuu idinka idin ka mid oo fayadacuhu dhigaya mandheertaa markaa saaraya calaa dahri muxamedin maxamed dhabarkiisa saaraya idaa sajada markuu sujuudo oo uu hoobto oo dhulka isagu ku fooro markaa kadib mandheertaa iyo qashinkeeda dusha ka saaraya waa kuma ninkaas yaa usoo bixi hawshaawa fanbacasa waxaa soo baxay ashqa alqawmi arrintaa waxaa isu taagay dadkii meeshaas fadhiyay ninkii ugu ayaan darnaa ninkii ugu dhurdarnaa oo inkaar ku dhacday kaasaa isu soo taagay wa huwa kaasina cuqbatu bnu abi mucayd waay cuqbatu bnu abi mucayd ninka ayaa arrinkii isu soo taagay anaa qaban buuhi hawsha ayada fa jaa wuu yimid bihi mandheertii buu la yimid fa nadara markaasuu fiiriyey fa nadara wuu sugay nebigii buu sugay sal alay slam taagnidiisii salaada uu taagnaa buu sugay wuxuu la sugayaa inuu sujuudo حتى إذا سجد مركو سجوده النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركو سجوده لله إلهي مركو سجوده أيو وضع على ظهري دورك أيو كسار بين كتفيه اللوضة قرب تحت ونصار وليبا يعني دورك أوليبا اللوضة دورك أوليبا اللوضة قرب تحت ونكو آدم حال كاسو من غيرتي قرنك هيدا أرتاد حروقا أيو كسار النبي صلى الله عليه وسلم نبي قروا سجوده sidaasuu yeelay buu leeyahay cabdullahi ibn mascuud xadiidka warinaya walxaal ana anigu anduru aan fiirinay markasaa nabiga lagu samaynayo sal alay wasalam aniguna waa fiirinaya waa daawanahayaa buu leeyahy laa ugnii ma aan tari karo shay-an wax ama tari karo waxaan tari karaan laakiin jirin waxba uma qaban karay low kaanat hadday ahaan lahayd lii aniga mancatun quwad iyo awood aan nabiga ku difaaco haddaan lahaana la taraxtuhu canhu waan ka qaadi lahaa saasaa jawaabka meesha ku jirta halkaa la taraxtuhu يعني من ديرتان كتوري لها عنه نبي حقيسا كتوري لها هذا أود لها الله معناها عبد الله بن مسعود وحوها ريبني هذيل بها ريبني هذيلنا ريب مكما أهين مكان حليف بوكو أهايو قوليه قال هذا أهاي حليف كأولا أهانا قال أبناه وحكسو إسلامي مجر ويراح سيدا درادت من يعني تبروين أما قويس وين وحوق بدن يعني سلك كوهي oo tolay markuu yiraahdo macnaha waxa weeyaan rag helay muusa lahayd lafiisu marka u baqay ana fiirinaya marka nabiga sida lagu sameeyay sallallahu alayhi wasallam waxbana uma tari karuu qala wuxuu li abdullah faja'alu wahay bilaabeen marka yadhakuna inay qosqoslaan man dheertii nabiga saarantay sallallahu alayhi wasallam nabiguna waa sujuudsan
ayaguna meesha fadhiyaan oo daawanayaan way ku qosqoslayaan way isu qosqoslayaan oo wayuxiilu in uu isrida ay bilaabeen bacdhum qaarkood cala bacdhin qaarka kale isku rido yani dadku markay isu marxabaynahayaano ay sheekadu isugu baxayso oo midba kale isku tuurtuuro isku rido macna wax weeyaan zaata laga wada macna qosol iyo isku ridid iyo yani isriixid iyo waxyaalo noocaas oo kale bilaabeen ku maadsanayaan nabiga sallallahu alayhi wasallam ay waxa laga wadaya tamaayal uu leexa uu iilani bacdhum qaarkood ba cala bacdhin qaarka kale uu iilano macna wax way jirkiis ku riday marahan kibir daraadi iyo wataran qooq daraadi kibir iyo qooq bayna saa u yeelayaan iyo farax ay ku faraxsan yihiin waxa nabiga lagu sameeyay sallallahu alayhi wasallam sida ayagu leeyihiin sida loo yahay saasay sameeyeen والحال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولكنا ساجد يهمد سجودا سجودي بكما كان سجودي سيبو نبي ديستي صلى الله عليه وسلم لا يرفعه سنكر يلين رأسه مدحي سنة وسنكر قادين وسجوده وسنكر قادين حتى جاءته إلا أوتي فاطمة وركب وحو قاري قبل لي فاطمة ولويل أباها كعبد السجود سيئا من غير باردوش كثار حافظ دي وركي قاري مركز صوتك تي ماشي مركز حتى جاءته إلا أوتي النبي فاطمة إلا أوتي قبلتي فطرحته مركز كتورتي عن ظهري النبي كيسي مركز كتورتي من نرك فرفع رأسه مركز النبي صلى الله عليه وسلم ملك فكروا قهري مركز سجودي كسوك عيو كسوتوس ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بقريش فاضي مركين كقادي والنبي صلى الله عليه وسلم أي من غير تكتورتي ويعيد وضياشي انتي كتشي ستبي عيو ضالس wax tilaabo qaadamay jirin oo si gooniye macnaha haween ma ina xadgudub saadameen ku sameyn jirin mid kale ee waxa weeyaan odayaasheedii iyo adeeradeedii iyo awliyadeedii iyo waxba meesha jooga marka waxa weeyaan ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بقريش 3 مرات إله قريش قبو عقاب صدح قرب النبي صلى الله عليه وسلم ساء خباري فشق واجب ذلك أرنكاس عليهم دشور أيضا إذ دعا مركو هباري عليهم دشور أما إذ علّذا وحويا أيضا سي دعوا هباري النبي عليهم دشور هباري معنى ذا وحوي مركي أركان النبي صلى الله عليه وسلم هباري وإلهي سبحانه وتعالى بري أيها مركا عبطي فقالة أرنكاس إبي وحو قل بين وحوي يعني سوف قل بي كان دم يسوس على شيء يوم وقال وحو الراوي وكانوا وحي أهاين يرون هو اعتقادية أو رمية أي أهاين قول رميسان بي أهاين قريش أن الدعوة هبار في ذلك بلد كان تحديث هبار كان ليسكو هبارين مستجابة إلا أقبله روحي معنا وحي الروح هبار أو بلد كان تحديث كو هبار كعبضة إيد بيت الحرام كإيد هدو روح كو هبار إلا أقبله وهبار كاسي روحي وكل حدون ذاتي رميسان marka ninkii kada tawaan dulmay ficlanay dulmiyaan waa arkan waana ina habaaray habaarkiisu marka uu ugu dhici doono sidaas macnaha istiqaasanaya taasa marka waxay keentay inay dhisadaan habaarka nabiga sallallahu alayhi wasallam thumma marka kadib sama nabigu waa magacaabay marka hore quraysh buu guud ahaan u habaaray haddana si gooniya ragii odayaasha ay meesha fadhiya ku maadsanayay ayuu si gooniya magacyahooda u tilmaamay nabiga sallallahu alayhi wasallam thumma sama waa magacaabay nabigu wuxuu yiri allahumma alayka bi abi jahl وعليك بعتبة بن الربيعة وشيبة بن الربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط إله انت أصدر أنبا كبوء أيوه انت أصدر أنبا إله كبوء أجهد هو إله قبق وعقاب هذا كوكي ومعنى وعد وحو كري الراوي السابع عن كيس الضبان المنتري أو إسحاق ما وحو ليه يعني عمرو بن ميمون أو كوريني حديث عبد الله بن سعيد كوريني عمرو بن ميمون وحو ليه هايوي يعني عد عمرو بن ميمون وحو كري كيس الضبان المنتري وعد وتري عمرو بن ميمون وعبد الله بن سعيد كوريني السابع كيس الضبان المنتري فلم يحفظهم ما موسى حفظنين معناه وحويان وهالمامي كيس الضبان من كيس الضبان اللي نحن ماشي كل شيء كيس الضبان وهالمامي ومشي رواية كلات المانتين من كاتي وحوي عمارة بن الوليد واحد عمارة بن الوليد من كاوي إنك الضبان إنسان ماشي كل شيء فهو الذي معبود باكو دارتي بوليه عبد الله بن مسعود نفسي نصيد بيدي كعندي زي كتيرتي الله النص إذا هيان كتارتي لقد رأيت وحن أركي بولي الذين إنسان مرني سامدين قلت لقد رأيت وحن أركي بولي الذين كوي
عبد أوتري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك كوتري مالنتا أو مجعاوي أيان أركيون 7 حالين كون اللجزي في القليب عالك قوف كهذا قليب بدر واحد وقوف كي بدر معناها مانتي بدر رجي لله أضياء شعبي تصدقوا ضد بقلة وحي عمارة الوليد مركا لقرب انت صدات الشاقيبة دقال كي بدر بالولاي وحاولي باللغور ذي وميت كودي اللغور داري قليب بدر نعم قليب كوحي لعالك قوف كا معناها وحويان أنا قاعد أما عير شينيت كلينا واحد قضي أنا قرنين ومضافرتي أي قضين أنا قاعد بين الشمبروه يقلقلان في دميرتي عير كاسلها قليب marka ceel noocaas oo kale taa meedkood inta lagu daadiyay baa meeshaas lagu aasay waa kii nabiga sallallahu alayhi wasallam la hadli jiray marka kadib intuu dunyay kulligood marka meeshaas wada galeen maalintii badar baan la wada laayay abaarkii nabiga ku dhacay sallallahu alayhi wasallam maxamed shahiidku marka waxa weey yaani waa man dheerta nabiga sallallahu alayhi wasallam isagoo sujuudsan dusha laga saaray ila heerkaas ay gaadeen oo ku dhiiradeen inay nabiga sallallahu alayhi wasallam ay macna wax weeyaan dibaato u gaarsiiyeen wa kana waxa umayyah ibn khalaf wuxuu إذا رأى هدو أرك رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مركو أرك همزه سمقته حمنتري ولمزه سيه صنع وحمنتري همزه إيا لمزه وحا أولا حيا همزه وحا كشاقة روح وجهي سيسوه كل شوقة أما لغو مقلي ما وحا كشاقة لمزه نوامد أدخرصته خاص أدوشة معنا وفيه دحدثين النزل كسو دكتي ويل لكل همزة لمزة مددك يعني حمسة وهوس نكحنتو الشبين إيو قرصشة إيو يعني وحويان باق إيو وحيالا نوعاتو كلا دتك كحم سيب موقتو على نقضاء عليه دتك وحوغا شيء كاسا هلاك اتكلم عنه هلاك كاسا معي قال من شاموث الهمزة وحوي الذي منك روح ويشتم الرجل روح منك عاية علانية سي موقتو عاية وهو يكسر تشبي عينيه لبدي سنو الجبين توای وهو يغمز ملعيو عابية به روح عابية وحمسة والجبية في موقع واللمزة وحوي الذي مثكوي يعيب الناس ضدك عابية وحكشاك سرا في قرصان وهو يؤذيهم ببعض روح قرصة وحكشاك ضدك وأن لسوا بمدحنا يستغل المزة ومعنى لمزدها معنا واحد يستغنى لقوله معناها ابن هشام وكشيغيو وحقوها فقط صنع صداته وكلا يستغنى أكلا قاضي أبو العالي حسن البصري مجاهدي عطبنا بالرباح أي لسوا صداته وكلا قاضي وهو مزد لمزد وحاول حيا من نوع سم وقسم من نوع في خرصون أما أخوه ولالكي أمية بن خلف نصاص أهايو أسوى أفكو كقدر كثير أما هقل صداء أهم وجسيه أفكو النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومعنى أبكي سورة الحجريو وحقا شيء أما أخوه ولالكي مياه يعني أمية بن خلف ولالكي أولينا استغنى أبية بن خلف ليلة فكان وحوها أبي هو استغنى وعقبة بن أبي معيط والله وضع ذات وحي عين متصافيين لو أنه داعات سؤال لو أنه إسوق قلبي فيو وصاحبه وليبا داعات سؤال يهانشري أكثر وجلس وفرس عقبة منك عقبال إلى ذوق فرس مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال فرس مربو النبي يعني هذا الكذب والسمعون مغلي منه نبي حديث مغلي يعني عقبة مر انتو تجي والنبي صلى الله عليه وسلم قال وحكو شيء هيتجي يوهرق النبي لها صلوات الله وسلامه عليه وسلم مغلي فلما بلغ ذلك ورتب مركب انتو أرضي بوحي وقاري وحل قارسي منك أي ضاعب إسوء هايين الساحيل في هائه أبيت من خلفها يعني أبي بن خلف منك صورتي قاري منك صاحب كاها محمد بقول تجيو هذا الكيس سود جيسي إنه سود جيسي وما لغضه لكن ما كنت أطري أو ما قالت مثل ما قادم ومن كلامه لكن إنه قلت تجيب أو معناه مشكلة فلما بلغ مركو قاري ذلك أرنجات أبين مركو قاري أي أنبه يعني هو عنانتي يعني التأنيب وحويان التوبيخ والتعنيف يعني والتلئيم بلده يعني روح إيدي سوح كشكوات النبه وعنامتي أو وعاتبه وإيدي إيدين يوفئوسو تشيري عنام بوضوطي
وطلب منه وحنا كطلبي يعني وحو كأذينيا وعيب وقدقيا وكعنانيا محاكو جيد وليه محاكو جيد إلى النشر السكتوس وحكسو لقيتته وطلب وحنا كطلبي منه حقس وحو كطلبي أن يطفل إنه طفو في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وجهه إنه عقوف كتفه ففعل واسمه هذا دوني صاحب كلمة إني زون قطو يضع منه سؤال وككفار قدته فجدي أفردي ستكتي يدقيسي أسود دقيسي حتى سادوني سواء وجهه تعلق كتو وثق عنه كتو وأبي بن خلف نفسه أبي قلبتي سنة فتى وحو بربريه يعني أوريق عظما لف رميما أو باليودي لف باليودي أو لف واهر انت هلب لقى علي اسكب باليودي انتو سوق عليه بربري أو تشبيه ثم مكا كدبنا نفخه هو أفوفي يعني بربر كلفة في الريح الضبيشة نحيد كأفوفي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حقي زروا أفوفي يعني نبي بعض مرة صلوات الله وسلام عليه انتو تولقتي ما لم بالضبير فعتين أو الضبيشي ساء وقبلي أيه وجهك يبارك النبي معنا وحوي المال أيه لفظ بربر كذي هذه ساسي معه وكان الأخنس من شريط وحوها الثقفي إن كانت وحوها ممن يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر وحكشها النبي أيوه نال منه وحلينا ما كان روحه وحكشف أما الدعم وحكوك فيسه أما أفكر وضع كيشف معه وحكم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم وحكشها الجري وقد وصفه القرآن وحكوت المامي بتسع صفات سجال صفاء أي قرآن كتبنا سجال في المواد وقرآن كتبنا ودقي تدل أو كتبت على ما كان عليه وحيد وحو كتبنا يوحو أها يحمانتي سجال آيات أو كتبت أي إله سبحانه وتعالى منك توفقها الله أو الكتب وهي أيضا في قوله تعالى ولا تدع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزنيم ولا تضعها يل بالي النبي كل حلاف مطار بدن كل دي بيان تقول عصمانا مهين وهدنا الدليسان أعطت أهين هماز عابين بدن مشاء أو صعون بدن صعد بدنه بنميم اسكدردر وصعد بدن ضدك ولا اسكدر ورك الله كلا قال aad ugu socdo uga shaqeey mannaa'in oo diida badan lil khayr wanaagana diida badan bakhayl way macna wax kama baxaan waa in gacana mu'tadin oo hadana xadgud badan asiimin oo dambi badan utullin oo hadana qalafsan macaanka qalafsan oo waxba aan galin bacda dalika inta soo kadib zanin waliba qaraca zanin macna waxa la mulsaq qarac bay dhigeen laakiin mulsaqa منك الضب وسن كبلنين يعني دبيان هو لغتري لكن أن كبلنين أي الزنين كليله زنين كذا مرك إنساس ضد الله سبحانه وتعالى يسود بدين إنساس المامود بالغوت المام يا الله سجال المامود أي الغوت المام وكلا دردران وكان وصى أبو جهل وصى يسونا يجيء مدي ما دعا أيها أحيانا مرمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إيمان شري يسمع منه وكذا يسنشر القرآن كذا يسني أبو جهل نمر برضو النبي هو إيمان شري سوى القرآن كذا يسني ثم مركا كدمنا يذهب كتيجر عنه النبي حديث كتيجري وكلا من شري وفلا يؤمن مر وينه ولا يطيع من وركيله وحبك ما قاضي ولا يتأدب مئر السنة ولا يخشى من عصنه سيدي وكيمت يقلب سنان في سقوع يلعبا ويبدي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قد بيشري بالقول هذا الكو قد بيشري هذا الكو يسوي النبي قد بيشري صلوات الله وسلامه عليه ويسد شيدين شري dadka ayuu ka jeedin jiray aan sabiilillahi shirka laga jeedin jiray dadkana wuxuu ku hor istaagi jiray diinta Allah iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam inay u tagaano hadalkiisa dhageystaan oo raacan suma markaa kadibna yadhabu uu tagi jiray Abu Jahl mukhtalan asagoo xaraga kibray bima faala wuxuu sameeyay isagoo ku xaraga kibray yani mukhtalka waxa la yiraahdaa waa ruuxa macnaha waxa weeye kibirka muujiyo isla weyn isqaad qaada asagoo isqaad qaaday waxa uu sameeyay daraadiina لقمنان أي لقمنتها يجعل وجعلها يبكسنان وبكسنها إسلاق القاضي أي تجد فخورا أولي بكفانا بمرتكب وحي سمية من الشرع وحي الشرع وسميين واللي يسوى كفانا
وما أنت قول كاسن دليل واحد قول كود دليل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وديبوا بيسوى وعليه أو كشيء كأنما فعل وبيسوى حول مدائن سميبا شيئا يذكر وحل شيء سميبا المجاب وحل شيء وضدك الله شيء وقول كوسهي وأمان كوسهي واحتاس وكالتا أسيدي من لي يمد وكالتا أي إسكاتلك ومركز إسلوينان وإسقاط قاضي وكفاني وتسميه وساس لهنك وفيه لحبة نزل كسر بك آية فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى آيات تفسير فلا صدق مؤسر رمين ولا صلى من الرمين ولكن كذب وتولى وسبينيه ودبكيه وفوق عن سيروح الأمير ودن معه إلى آخر الآية وكان وطاء أبو جهل يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي ذكري عن صلاة أن يؤدي ذكري منذ أول يوم ما نمسي أقهر السلقة بالله ورآه أركي نبي أركي يصلي سوى النبي تكني في الحرم تكني أبو جهل ما نمسي أقهر السلقة أركي النبي تكني حرم كذا وحب بالله بإنه نبي صلاة أدي صلوات الله وسلام عليه ما تكن كذا هتكني صلى بالله ومرة مررك كاملة أي مرة مري به إساق وحا صومري أي مرة أبو جهل مري به النبي أي صومري صلوات الله وسلام عليه والحال هو النبي يصلي وتكني عند المقام أصبوا مقام كأكسس مقام إبراهيم أصبوا أكسس كتكني أي مالي معلمها كاملة أبو جهل صومري النبي صلوات الله وسلام عليه فقال وحر يا محمد ألم أنهك عن هذا سو أرنكا كامرين هذا كور أرنكا جوج سو كما أرن وداكما أرن أرنك وتوعده ونقودي قدي بوجهي يقول وأجان دون طواحا كوس ما يبكون فأغلب له وكأكي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم النبي هذا الكأكي وانتهره نقول وأجان تنتهى عليك واحد إلهي كوس سبيل هذا الدبعة الموسم كيه هذا الدبعة هتقول هذا الكأكي يعني قول له أرعي ووحي الدنيا وحوي وإلهي سبحانه وتعالى وحكاكم فقال وحر يا محمد بأي شيء تهددني محاد أنا قد يقول دينيس الواحد أنا قد يقول يعني وحويان أنا يقول دينيس يقول عبسيني زي من أما والله إلهي بقول دارتي إني أنه لأكثر هذا الوادي ناديا أما إني والله لأكثر هذا الوادي ناديا أيها العزيز إلهي بقول دارتي أنه واديا كذا مكة كولا واديا كذا تددك دجن منك وجود ضد إهلو قرابة بدن بره يصاحب marka maxaa aniga igu goodin naadiga waxa la yiraahdaa ninka eheladiisa iyo qaraabadiisa iyo xigaalkiisa la yiraahdaa saaxiibihiisa ay golaha wada fadhiistaan sheeko wadaag leeyihiin naadiga waa la yiraahdaa marka kuwaas laga wado marka anaa ka xoog badan meeshan sadaatana meeshii aniga la igu goodin lahaa ma aha makan jooga meeshana anaa dadka jooga ugu xoog badano nin ama iga yahay badan ama iga laan dheereysan ama macna wax weey iga fiican dad ma u jiro marka maxaa igu goodin aniga يا ذي عبدين فأنزل إلهي وتسودك مركز فليدعو ناديه هؤلاء إهلدي سيئة صاحبته شيء سندعو الزبانية أنا أقول ملائكة نؤيد ونوعي وقبطاء العرب دوناي يعني وحوي إهلدي سيئة صاحبتي أنتو صبرت بها يودا هؤلاء أنا أقول عزا نؤيد أن نقص الليد وملائكة زبانية وفي رواية وحيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيه أخذه قبطاء بخناقه كليتك أيوه خنقي وحقبت معناها دونتو قبط عرها أيوه كله يعني خناقة وحا لقولا حلقي قال لي وحا كانوا لي هذا يعني كوشا القنت للجريانا أما وحا القنت للجريانا خناقة ولا وحا لقولا ماشا كليتك إيه يعني حلقي قال دونتا حلقة أسا نبي أوقبت صلوات الله وسلام عليه وهزه هونك الجلي أبو جهل بالقوانا أبو جهل بقى أنت اللي قلت لغيبة معناها لك الجلي ومعناها نحو يسال له الريحي كل طال ورد كل طال وهو يقول له يسوى نبي وكل وساء الجلي أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى آيات أنا وأخري ونجي الجلي أنتم كليتك قطعي أولى آيات معناها هذا وحوي يعني ولا سوق لا فيها لكن ما كفي سولة وحوي أولى لك أولى وكوها بانتها لك أديك
إن أتاء سوي نيسو أو كبرت ويكوها بونتا فأولى كوها بونا ما دام أدخالك أبو سيبة أدخلاف صوص قرمرتي هلا محيبوها بونا ثم أولى لك فأولى كوها بونا أو كوها بونا إن أتاء سوق قد أو كبرت ما دام ربك كو أبو ريبة معنا وحويا كوكو في نوت يدي تسمع فقال وحول عدو الله عدو إله مركا وحول يري وكتشوا ومركي آياتنا لغو أخريي كليتك أنت لقبت لقلقلي أيها وحول كتشوا ويقول أتوعدني يا محمد محمد وميادي قودين ما أراد إيه معنى وحوي إيه قوديني ساير يعكسيني ساير يقول قولي والله إلهي ما قلنا لا تستطيع ما أوجد بولي أنت أديك ولا ربك شيء ما أوجد أديك يا ربيات أديك اسكدعي حتى ربك وأبناده صدري هذا النبي إنه يتكسر فيك ما قام كسر هذا نيجي جري كريسة وقال كبريء قال كبريء هو معناه وحوجا يعني نرشنا ما أنت اسمه رأدنته قلت كثير معناها كذب به قضينا ماشى كعب ورقوا إلى دوايا وركن قالوا معناها فجرجوان وإني أنقول الله أعز يعني ولا أعز من مشى عد صعدتي بين جبليها مكان لبضة دبورة نحن عد صعد منك أقصح بدن أشرف بدن بها بين جبليها وحلقوا يعني بورها مكان لعيها كتير بورها مكان لعيها كتير نحن ومقالة مقالة مكان اللي هذا من صعدة أو لوك صعدة منك أقصح بدن أشرف بدن بها ياد مركا عليك أقول عبسيني ولم يكن أبو جهل موسى أهاني ليفيق مد براروغ موسى أهاني من غباوته مع سنمدي سامد كبراروغ من نقلن بعد هذا الانتهار قول كذب مركي قول الوعد في إلهي عقابي قول كي عسينك العزيز مكين إنه كبراروغ خردده كتري إيه كيفية مع سنمدي إنه كبراروغ مكين بل إنه كبراروغ إسكبت داي ازداد وحو كرنصدي شقاوة الأردر يعني وحو إنكاره كبعني مؤيو بلاني سياسة فيما بعد مكة كده يعني عمل كي حمائيو لدقالن كي نبي دين لدقالن كي دي أفحمدي تيب أمبو معناها وحو يسيب الصدي إنه صور نقضاء ازدواء قبصاء وانسوماء ماشي اللي قبل له وحو يعطيك كلوه كبعني وأخرج وحو وريه لمسلم وحو صوصر عن أبي هريرة وحو كورينيه قال أبو جهل وحو أبو هريرة وحو ليه أبو جهل وحو يعفر محمد وجهه بين أظهركم محمد مياه يعني يعفر محمد مياه بوريني وجهه وجهي سميه بوريني بين أظهركم دحين يعني السجود النبي بالسجود هاي أيها الحليه من محمد وجهي سعرض كوع عامني خرتين إذن كنا وضعونا إذانية هو سيرتنا معناها ما ضحكت قوتان منك كذا تعرضي وجهي كوع عامني ما ضحكت قوتان ساسولي فقيل وحال يدي أوضياشي كل هذا نعم ها سونا ماشي ساسو وجهي سعرض صار يعني نقول ماشي لما نسكتشونا ساسو يعني فقال وحوري واللات والعزى صنمك اللات اللي هذه صنمك عزى اللي ما كقارتين لئن رأيته هدي أن أركب محمد لأطأن إن الإستاج على الرقبة لقمت إن كإستاج ولا أعفرن إن أن يعني أن بورين وجهي إن بورين وجهي أن عرضك جنبي ساسو كدان يعني لو هذا الصنم إلى هان ورميتناه كدان سمرك سويتوني haddaan arko maxamed oo sujuudsan in aan qoorta intaan kaga istaago cagta ka saaro wajigana waliba inaan carrada macnaha ka marmarin oo carrada aan kaga xoqo fa ata rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam fa ata min abu jahl rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nabigu yimid wal xaal nabigu yusalli tukanay illa wadaatay nabigu maalmaha ka mid marka tukanay ayuu yimid za'ama wuxuu sheegtay marka la yadca in istaagay raqabatahu asagoo doonaya inuu qoorta kaga istaago oo dhaartay inuu fuliyo doonay ayuu marka nabiga u yimid maalmaha ka mid nabiga tukanaya sallallahu alayhi wasallam fama faja'ahu wuu ku tilaabsaday marka horay buu tilaabo qaaday wuu dhaqaaqay inuu nabiga qortiisa istaago damay fama faja'ahum kuma kelinin nimankii odayaasha meesha fadhiyay
إلا وهو يمكس على عقبيه أسوأ عرضه سجدال جدال أبرانا يمويان مركب السكة أنك في أرده يسي قمامه وأضياش وحي أركان جدال جدال أبرانا ويتقي يعني كوكباني بيديه اللي سجعمون كوكباني قعموه زاليه وقعموه معنا واحد سجده جدال جدالنا وأبرانا وعريا معنا مركب يسوق معنا ساسين يلا فقالوا وحيدا ما لك يا أبا الحكم محافظ دعي أبو الحكم ومعنا وحوي كن يدي سيوان أبو الحكم محافظ دعي وهذه السيور دي سيق أمامها هي محاد دربك يعني إنها قدال وعرطوا أبقرطوا ذو اللي بقعمها أطمعنا كوكبت قال وحيوري إن بيني وبينه أني استقع نحن النظر وحا دعي أهاضي لخندقا جزء من نار دبق مركز ساء دقاقيمة نحن النظر وحا كتشح مي جد وين أو نار دبق كعي وهؤلاء كوا كراتنا وحن أن إذين مقنين أجنحة قربوي وين معناه وحوي ماشي كم مغنى أيضا وانا قيم أجنحة معناه وقربه ملائكة ملائكة قربها دي يضب ماشي كقضاء أمبا معناها مركبة أيكم بغاروي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوي لو دنا هديء إيسو نوان لها مني أنا حقيقة هدو وحش يرصادر كلها لاختطفته وحا ضفي لها الملائكة ملائكة أيها ضفي لها عضوا حبين ضفي لها ملائكة واردة غير النبي واردين صلوات الله والسلام عليه أيها حبين بأبه من هيباء قعمها نقول الله عررنا اللغة نقار يعني واحد ملح نقار بابا الله ضفي لها حدوث تلابة وقال لها وإسكرتوا مركزين بأو عرري سلاسوية أتقل لكن كنت لقلك سواحي يدين النبي صلى الله عليه وسلم مدحك جاي استاقوه وليبا أبقوتشيو ومدح إيسا أبوك معناه وحويان آد معناها أبوه أيها إسكرت لقلك ساحي marka nabiga sallallahu alayhi wasallam ali dhibaatooyinkaas oo dhan ayaa loo geystay qaar la isku day oo rabbi subhanahu wa ta'ala uu ka difaacay iyo qaar badan oo ku fuleeyay waa jiray كانت وحيد هذه الاعتداءات حد قدبيالك بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي مرك الله فيه يعني حد قدبيالك فراغ بدن ينصور شيء النبي يعني قيس كيف أبو لهب يقيس كيف إيو قضياش الفراغ بدنائي يعني عقبة بن أبي معايد إيو أمية بن خلف إيو أمية بن خلف إيو أخنس بن شريق إيو أبو جهل إيو وحاس أن إدباتان النبي اللوجي سنة صلوات الله والسلام عليه ويدعمي مع ما لشخصيته الفد من وقار وجلال في نفوس العامة والخاصة أيضا أي شيء وحاس طنب الكفر للنبي صلوات الله والسلام عليه والوجود سميه أيضا أولها ضدنمو سوعا ولوينين شري ولا قدرين شري ضدك جود أهان يولي بقار أهان با ضدك ودن أي قدرين شري ninki sidaa loo qadarin jiray qoys adagna ka dhashay adeerkii Abu Talibna uu difaaciyay oo nin oday ahoo Makka laga yaqaano asaga laftiisa aan la mari karin ninkii nooca ahaa hadii intaas oo dib lagu sameeyay muslimiintii kale waxa ka filaysa warku zawada kaaway muslimiintii kale mustadcafiinta ee inta minna haynin dibku inta waa ka badan yahay كانت وحيد هذه الاعتداءات حد جوديالكاasi way ahaadeen oo way dhaceen بالنسبة مركز الله فيريو إلى النبي صلى الله عليه وسلم مركز النبي الله فيريو مع ما لشخصيته أيضا أي شيء واحد ضد مدي سأصب ناضئه ضد مدي الفدة شخصية دي الفدة إسعوني ومن وقار يعني احتراما هي وجلال وينين في نفوس العامة والخاصة ذاتك جود أهان يقار أهان بالنفوس طولة وينين في يقدرين في أيها هي النبي صلى الله عليه وسلم يدو جدو أيها هذا الاعتداءات أي حدود كاسر والمسلمين إيه ومع ما له يدو أي تتوحى النبي أسقنا ومن منعة أبي طالب دفاعي فيها أعظم رجل منك أقوينا ولبا أبو طالب محترم أولا احترامه في مكة المكان هو احترامه رجي مكان هو احترامي ترى أولياشا منك أضي سنانا وأذيرك أبو طالبنا دفاعي في نبي قلت لي صلوات الله وسلم عليه ويساق دفاعي أصبنا الشخصيات قونية أو صوعا oo qadarin mudan oo aan lagu dhiiran karin walaha iyo haybad nabiga walaha sallallahu alayhi wasallam labada arrimood ba isagoo rahaa ayaa hadana intaas xad gudub lagu sameeyay amma بالنسبه ila almuslimiina marka la fiiriyo muslimiintii kale wala siyama du'afa waxaan ayagu kuba jirin ba yani gaar ahaan waliba kuwa du'afada aha oo muslimiinta kamida fa inna al-ijra'at
أعماشي يهو القلبي لقو سميه كانت وحيد أقصى كأرق بيهي من ذلك أرنكا وأمر متكخرار بيهي يعني كان نبي لقو سميه صلوات الله وسلام عليه وحكد الرئيسي مسلمين فإنتو ذكا لقو سميه آدم أغخر عليه كان أهان وليبا مسلمين ثم السنين يجا اللطهم إلى ماشي قبيل بالش لوك لدنبيه ولوك العسنتري هو بمستضعفين كي أما أضوم سوء هانتري أما مركب أضوم معها أما قيس كود ويريه أما حلفه وهو معناه قليل كان يطقون إسكيجتشرين ماشي أم دجرين وقبيل كود الدجرين مقار كاس أيام معناها تلك أقوين قبعي ففي نفس الوقت وقت قال لفتيسة أي قامت استاكتي كل قبيلة والبوي استاكتي وهو حيث تاكتي تعذب إلي عذابته من دان عدي كدين ديكتا ومنها أيضا كمنا بالإسلام كدين ديكتا أنواع النوعيات إن يكون عذابته من التعذيب عذاب الكمل معناها القبيل والباء والله قلت الأرنتي إلا الأرنتي هذا من الحب بالسوقاني وحالي المركب قيس والباء إنك نحن ما إنك الراعي إنك نحن أننا ينستطيع أن نقول أن أرنتي إن إسكوكين في دي ينسودعين قيس ولو بعدي أديك كإسلام شغاك غو عقاب صدقي دين صدق سوء صدقي حتى نقطة إلا الله يلين صدقي إذن كأسكر قيس والبمركة وسوتاعي من على منك إسلام كجلا إن أي نوعية فربضان أو كل جديسان أو عقاب يعلم إنه يجيسان صار ما قبل هذا ومن لم يكن عدي أن وها له قبيلة من كان قبيل بالهيمة فأجرت وحي معناها كوك إنيان أما فأجرت ويدريان عليهم دشونا ويدائمين يعني عليهم دشونا الأوباشا يعني ذاتك قيمه وضفوصي إيهو السادات الأوباشا فأجرد عليهم دشونا وحا دائمين الأوباشا ذاتك قوله السلسي إيهو السادات مدح ذيبا أيضو اسكو كرا وحي يعني قليها إيجا دائمين ألوانا مدبيالو أما النوعيالو ومن الإزدهاج لبك إعلاد في كمل معناه تكولا أو باش توحل لو جمع وبش أما جمع وبش معي وبش كوحل لهذا وأخلاق من الناس ضد أن هل ملكوا ذا أرورين وهل نصبوا وضرهين لكن إجاشان بورسيا اسكو تشيرتيرو اسكو نحيان أو باش بلغان أو باش توحل كل هذا سفلة الناس ضدك بلشدة قيمة هذا غوصي أيا لهذا كواسونا هذا ما يتكولا أقول إليه ninkii qabiil lana qabiilkiisa hawl ka qaban oo shaqo ka qabanay ninkan qabiil lahayna dadka qaybtiisa hooseeya iyo qolada madaxda ee odayaasha intuba waa la isugu tagay markaas waxa loo ciqaabtaas ama ibtihaadkaas oo yafzacu uu ka argagaxayo min dikriha sheegitaankeeda uu ka argagaxayo qalbul xaliimi ruuxa caqliga leh ama dulqaadka leh qalbigiisu uu ka argagaxayo yani qalbigu waa ka saseeya haddii ciqaabihii loo geystay dadkaas wax laga sheego sidaas way aqal yani wax qalbi alla qalbigi nool waa ka tasay haduu marka wuxuu gudagalay sidii ay u ciqaabi jireen saxaabadii la ciqaabay iyo qaabkii loo ciqaabi jiray iyo ragii ciqaabay ayuu wax ka sheegay kaana abu jahl wuxuu ahaa idaa samica hadii maqlo birajulin oo qad aslama islaamay lahu ninkaasoo sharaf u sugnaaday iyo wamanacatun awood من قبيل كذا شيء عقل شرف ملك وضيع وإسلامي مركو أبو جهل مغرب النبه وحو أهميت معناه وحوي عنان تقر دلعي وأخذاه وليب الجرب كيسا كبح يعني عنان يطلعين وأسو جرين انتو أطبوا جرب كيسنا وكبح حيايا وحو أرنشي هدي أي لباسة فكوتما أما أدقل إسليزان واحد أقاسا إنا نمدبدم بسوكا جرب تاغي من المغوه لندونه أخذاه ساسكوه وأعده وحونا أقوه دينشري بإبلاغ الخسارة إنه قارسيني الفادحة أفولهم في المال مال كيسئي والجاه شرف كيسئي وحاك لسوء أقوه دينشري وحاك تلقشا شرف كاد بلشدة كلها يدي وجهاقين إنه ضعي حولها هذه يقرع سيقاقين إنا انتظك كدع دعني إنا لقائيسين خسارة حولها هي خسارة شرف الله مرضى وفوسه يريه وإن كان هدوها ضعيفا من تبردرا هدوه كاجوا هدو من شرف ليه وإن كان هدوها روح إسلامي ضعيفا من تبردرا ضربه إساك عنه بالله وقراعي
وأغرى به وحنا كعنايا أو قدر يا ضدك قدر يا معنا أغرى أي حرض عليه أغرى به ضدك أي قدر هيايو إن معناه وحوي العقاب وقبل وجه أي ضدك كبورين يا فوق القالمين كاتوت لها أبو جهل يعني هذا الاستيض والله سمايايو قيسك أما قبيلك رج واحد شراء يعني أقع في بحضة وضو بحضة ولو بعض رج نوع سكلتا هدي اللي يرادوا ورنمانكي ولا دوبين أما حوجا ولا تدي ولا السعوديين هدي لهم وضياش وين بالوطن وليه سياسيين تاي وضياش يضدك كلمة وضع كم مقلاد وحال السجود دريا ترديد يترديد مرنا ولا عكسين مرنا وحويا ولا الرجالين وحولا إيو قبل له جورية وحياة بربنا بلنقادية مرنا الاثنين سيدا قاب كاسو كلتو معه يعني هو أساليب تتقال كأي كمتة أوجه المركز سيدا صحة وكان وصفها عم عثمان بن عفان عثمان بن عفان أديركي وثوها يلفه عثمان متكي كمر مرأة أيوها وكدوزوها في حصير جلد دحدي أما الدرين دحدي ومن أوراق النخيل تمرت عليهم سيدا لقسمي تمرت الله مهل جلد أما الدرين لقسمي أيو انتو كسيحي يكدو دوبي ومضح إيا من شكا قدو دوبي مركو كدو وكذب ثم مركا كذبنا يدخنه ومعناه وحو قيقني من تحت غاصه كغيقني غاصة انتو مال سرسار أيو قيق غاصة معناه ضد انتو كغشب يقيقها في سيديني معناها هو عبوري او نافتي باكون نقون او روح زمر عريري مركو لكوشي هذا رقيق لوقلي يعني عبور إيا نفسها قولي ساسو يسوره كسوينتي وأساليب في عقاب كواي ولما علمت مركي أغاتي مصعب بن عمير مصعب بن عمير هو يدي مركي كورهش بإسلامه إسلاميه مركي كورهش هي أجاعته قاتيسي عمتدي بيوزي قرية يمزو قلي كركزي وحالا وحي قرية لغا كريو طنبا لغا قري وأخرجته ويكسرت من بيتي قرية وكعدي كما أرك كريت وكان وثوءها مصعب بن عمير من أنعم الناس ضدك كو أقبر واقع بضنبوها عيشا حق نورش يعني قيس وحقنا شيء يعني النور وحوقاها يستوى كبر واقعا نين مركي وحوقاها أن يراه كسو كوري نورل سريسا كسو كوري ومعناه وحويان دعان كيسي هرب كيسي أين نبا أبرا نبا أين أبرا ساسو أنت فتخشف مركاسو دري جلد هرق كيسي أيات دري تقشف الحية سيدا أي معناها أبيتضو قطردو أكلم عبار مركو إلى ماشي دعان إيو عصير إيو وحوقا ماشي معناه وحوين مركو رمؤلين وحوقاكي مركو وايه هو داري انتي رقا نماذا البابوس هذا معنا رقا نماذا انتي أهيد بابوس هذا واحد وحي الدوائدي ورحم سيا كبح من بعض سيدي على يصدق أدردو سيدا سوكالتو يعني أدريو وحا إسقصري هرقي اللفتي وإسكو بني زوائدي ورحم ماشي كبح معنا معناها دينتا كسو لابا انتا سمعنا وحويان وابوس منه هذا دينتا كسو لابا الصنغ وويل كذي وحي كتو عشمته لكن كرية وحا لسان ويلي وحوى مبدأ أو قاتوا وكان بلال وثوها مولى أمية بن خلف أمية بن خلف أي مولوها الدون كيسوها الجمحي فكان وفى أمية وثوها يضع مثلها أيها في عنق قرصة وكجلنشري حبلا حرك قرصة كجائر الشنشري ثم مركا كدبنا يسلمه وقع عن جلنشري وقل يبتر إلى الصبيان عرور تيري كعيارة كوسكوسة أي مركا قتل إيش وقانكي سيقوه يطوفون ويلو ريقيان به إستقى في جبال مكة بورها وإلما يرأوا نيوين انتلوه قامي ونقتلي حقيقة لا دعوة مرنا بور بيلفنا مرنا وكلا صدعي مرنا ويلد بالربنية ساسو كسمتي حتى كان إلا أوها يظهر مدء مضرف أثر الحبل حرق الرات كيسي في عنقي إلى النقنطة إيكموك يعني إلا حرق مرنا نقود شيري وحويان نقنطي أو رمبا بوغوذي ومدعيكو أولي جتمعا وكان وفع أمية منك أمية وفعها يشده مدحر أيها شدا حرد أي حرج ثم مركا كدمنا يضربه كراعش بالعصا قلب مركا كراعش وكان وفعها يلجئه مثل لبا تقليع أيها أو قصبة إلى الجلوس فريسي لفريسة في حر الشمس قرحة طريقة قرحة مركا أكلها قرحة مكة معنا واحد وككل شيء قرحة تقريبا منطقة قاركود waxay gaadhaa ilaa 40 iyo 45 lix bay gaadhaa waa meel aad u sarreeyay
والو دينتا هذو سروح معناها ميل هرسنين ومعناها واحد ويا أم فريسة وكله جاي تقريبا واحد ويا خطر واحد وتشير ضربات يعني شمس نقطع مركب ماشات أيوه فريسين شير قرحة كلها كذا مركب آدو كلام أيوه ماشى فريسين شير كما كان سيده وهذا يكره مثل قصب على الجوع قاتل عن صدق أردن أنتو كأوم يكجع كيسية أيوه هذا نقول بقرحة أودرج وأشد من ذلك أنت صنوحة بكثرا كله أنت صنوحة وحى بيني وكما وضع ضربة أنه أمية كان وحوها يخرجه مد حياء أيها بلال إذا حميت مكة كلاته الظهيرة مال وين مكة كلاته ولذلك ماشي قدام بتاعي قال أيوه معناه وحوي لبح شري فيطرحه مركز وحو توري شري وحو كوري شري في بطحاء مكة بعاث مكة من البعاث يتموح إلى أيوه معناه وحوي يسوي حيران أيوه ساوي توري شري ثم يأمر مركز وحو أمر شري بالصخرة العظيمة بقحوا وين إن الله كانوا أمر بقحوا وين الله كانوا فتوضع والد الشنية بقحها يتقع على صدره لا طلق تاريخ يعني حقي وصل ملك قاية وعلى الجبيو يقوليه وأقول عرستيل وأقول معناه وحويان يعني تجحشيل تجحدوا كلها كرت كنا تجح وين بفرح لك ثاني ما له عيب في المجتمع مجتمع وانا حكرين وما نقدر ثم يقول وحي أورنش لأمي لا والله إلهي بان كبرت لا تزال إنا رنكزورين بأورنش هكذا سيدا كزورين سيدا اللقوط رامي مايو حتى تموت إلى عدم أو تكفر بمحمد أو محمد كبانو لولا قيارضون مثل صوت وحاول عقابتك لا يجد ينكرع أما إنا جيريوتو أتسو أدونك نفس أما محمد أكبر وتكبانو والله خياره أحلاهما مرون لو خيار ومدون كخراري عيوة جيريوتو سيدا وحكود الساريين أدونك ضعف وخيار خرار مبدأ كذا تعاضو عرفت إنه هي مبدأ كلية بدبادل وكتير قاضتين كلا مرة وخيار خراب والله خيار مثل كخراري هو لا والله إلهي ما كنت أرتين ما يبقى أنشر لا تزال هكذا زلا كسول ميزد حتى تموت إلا عدمة أو تكفر بمحمد أو محمد أنكو قالوا ذو وتعبد ولبا تعبد ولبا محمد أنكو قالوا بكليلة يا مايل أو تعبد أتعبد اللات والعزة لا تيعزوا لبا تعبد محمد واكو قالوا بي وركا كلي لغا ريزنا وإن أصبح ذيك الله ضوء لا تيعزوا سجود وتعبد صعب معنا لا يردينك فيقول أورنشري بلال والحال هو يسوي في ذلك أرنك أبوزغني أسوي صاص العقام بوحي أورنشري أحد يعني الله أحد الله وكلي هل قد سيجي سيدا سؤال رضي الله عنه وارضاه سيدا سيامرك اللو عقاب تري حتى مر إلا أصامر به سجى أبو بكر أيا صامرين يوما ما لن أي صامر والحال هم يصنعون أن كسمين عن ذلك أرنك به أيقول سيدا كسمين يصاع عقابه أيا مال ما كمل أبو بكر صامرين رضي الله عنه فاشتراه إيبي أبو بكر بإيفسدي بغلام الضم بكويسدي أسود مدو أدون مدو بناصدي أو كويسدي وقيل وحلي إيسو كويسدي أدون موسى ناصنين ب7 أواق تضبع وقيادات أو في ضع أو ب5 أما الشن أو من الفضة كامل أما الشن وقيادات أما تضبع وقيادات أو معناه واحد في الضع بكويسدي وأعتقه مركز كدب نوح حرية بلال وحرية أو بكر بلال أي حرية مركز سيدا سياء هينو عقابه قدر درناء إلا مرين كرائية هاي الصحابة رضوان الله عليهم ساسوية وكان عما روحها معناها وحا كان حتى إني أتكالان ضد دين تودكو أدك ومبدأ تودكو أدك ووح ضبيل والبعديك ماذا إني نكل حين وحيالها كان يوحو كم إذا دين تقاضى شدد مركو ردبك صومرين دب هذا كصومرين وحي دب كوسو قلاي ضيل كاغما بخ ساسوي لكن هذو وحو سيدي يكو سو قال سيدي يربو كو داس سيدي وحي سيدي يرا كو غشو سيدي يربا كغد sidaas marka waxay keentay inay noqdaan gundiga aad iyo aad u adag ama asaaska aadka u adkaa ee islaamka iyo muslimiinta ay isku taageen markii dambe saas yahay annagana wax weeyaan maanta oo la joogo taqriiban wax weey waan gaajeysnahay diinta loo qabto waan gaajeysnahay
ama mehe dharkaasi iga ama heel baa iga lacag badan sidaa daraaddeed yurub baan aadiyo bal waxoogaan meelaha kasoo jabjafanayaayo kaniisadaan geliyo ma gaaloobahayo laakiin waa waxoogaa baan raba inaan kasoo qaato khalas waa layga dhar fiican yahay iyo waa layga dhaqaalo badan yahay iyo waa layga guri fiican yahay waa layga gaari fiican yahay intaasaan u gaaloobayna ragna waxaan usoo maray sidaas way macana ragna sidan waxaan usoo maray wa kaana camaar ibnu yaasir wuxaa radia allahu canhu mawlan mawle ayuu ahaa libani makhzuum reer bani makhzuum buu isagoona mawle u ahaa mawlaha waxaa la yidhahdaa sayidkana waa la dhahaa addoonka la xoreeyeyna waa la dhahaa labadaba waa la dhahaa aslama wuu islaamay camaar ibnu yaasir huwa isaga iyo wa abuuhu aabihii iyo ummu hooyadii aala yaasir baan odhan jiray qoyskii reer yaasir oo dhan baa wada islaamay fa kaana waxay ahayn almushrikuuna gaaladu waxay ahaayeen wa calaa ra'sihim abu jahal baana arrinka oday ugu yukhrijuunahum kuwa saara ayay ahaayeen qoyska ila alafdaxi tamuuxa ayay u bixin jireen afdax maka tamuuxeeda iyo caradeeda ayay u saari jireen meel macnaha waxa weye carrada way idaa xamiyat markay kululaato ayay bixin jireen alramdaau yani cagagubyadu alramdaa waxaa la yidhahdaa carradu marka intay kululaato ee cagaha gubayso cagagubyada ay tahay ayaa ramdaa la yidhahdaa fa yucadibuunahum way ciqaabi jireen bixarrihaa bacaadkaa kulaylkiisa ayay ku ciqaabi jireen wa mara bihim nabiyu sal lla alay slam nabigaa soo maray maalin maalmaha ka mida walxaal hum iyaga yucadabuuna la ciqaabayo ayagoo la ciqaabahayo aada loo garaacayo oo la dhibayo ayuu maalin nabigu soo agmaray salawatullahi wasalaamu caleyh faqala wuxu uhi nabigu sal lla alay waslam sabran aala yaasir yacni isbiruu sabran iska dulqaato iska adkaysta ree yaasirow fa ina mawcidakum yani ballankiina alla uu idiin ballan qaaday aljannatu waay jannu ilahay idiin ballan qaaday iska adkaysta buu nabigu ku yuri salawatullah waslamu aleyh waxba uma qaban karayn isaga lafihiisii baa macnahaasaan soo marnay marka mar hadduusa waxba u qaban karaynin kelimadaas dardaarankaa buu nabigu ku yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh famaata waa dhintay yaasiru odaygii waa dhintay filcadaabi ciqaabtii buu ku dhintay isagoo ciqaabayeen bay naftu ka baxday wadacana wuu duray abu jahlin odaygaasi sumayata gabadhii sumaye ahayd umma camaarin camaar hooyadii ayuu wuxuu ku duray wuu duray fii qubulihaa qubulkeeda farjigeeda ayuu duray oo bixirbatin buu murjin kaga duray ama yani taki fa maatat markaasay dhimatay yadii qubulka macnaha waa xubinka taranka waaye xubinka taranka ayuu macnaha waxa weye wuxuu kaga dhuftay murjin buu kaga dhuftay murjinkii baa ka dusay oo ilaa dhulka isu qotay sidii bay marka iyaduna ku geeriyootay wa hiya iyaduna awalu shahiidatin gabadh oo macnaha lagu dilo si ugu horreysay wey filislaami islaamka dhex shahaado gabadh qaadat oo ilaahay dartii loo dilo gabadhii ugu horreysay way magacaasay wata awalu shahiidatin filislaam sumaya washaddaduu way adkeeyeen alcadaaba cadaabkii ayay adkeeyeen waxaa soo haray marka uu qoyskii ka soo haray camaar yacni duqdii dhimatay odaygiina dhimay wiilkii camaar ahaabaa soo haray washaddaduu way adkeeyeen alcadaaba ciqaabtiiba waxay ku adkeeyeen calaa camaara camaar ayay ciqaabtii ku adkeeyeen bilxarri yacni kulayl taaratan mar macnaha meel kulul bay keenayaan wa biwadci sakri dhagax dejintii axmara dhagaxaasu weliba macnaha waxa weeye cagaaran calaa sadrihi laabtiisa la saaro ukhraa mar kale marna dhagax weyn ayay yani waxa weye laabta ka saareen wa bitagriiqi hafin ukhraa mar kale marna waxay ku ciqaabayaan intay biyo soo qaadaan oo biyo meel macnaha waxa weeye ama meelaha balliyada ama meelaha biyuhu ku jiraan intay geeyaan dabaal isagoon aqoonin baa meesha lagu tuuri biyahaasaa lagu hafinaya noocyo fara badan oo marka ciqaaba wa qaaluu waxayna ku yidhahdeen laa natrukuka kaa tegi mayno ku dayn mayno xataa tasuba muxamadan ilaa maxamed ad caydo wax ka sheeg markaad wax ka sheegtood caydo waa ku daynayna aw taquula ama aad tiraahdo ood sheegto fi laata waalcuza khayran ama laata iyo cuza aad khayr ka sheegto ilaahnimadooda aad jirtooda ictiraaf labadaa mid maan kugu dayn karna maxamed cay laata iyo cuzana khayr ka sheego ammaan fawaafaqahum wuu waafaqay calaa dalika arrinkaa isagaa buu ku waafaqay mukrahan xaaliya mid la qasbay yani naftu markii ciqaabta laga badiyo oo laga badiyo marka dambe iyadoon isgaranaynin bay iska mari wixii ama ma ahee intay qaadi kari weyda ciqaabta yaa wixii laga dalbayay bay iska samayn sidii buu marka yeelayo wuu ku waafaqay nebigana wuxuu ka sheegay salawatullahi wasalaamu caleyh laata iyo cuzaagiina macnaha wuu iska ammaanay afku ka yidhi wa jaa wuu yimid intaa markuu sameeyey bay marka faraha ka qaaday
markii faraha laga qaado la sii daayo ciqaabta ka fududaas ayaa markaa wuxuu xusuustay hadalkii uu yidhi hadalkuu yidhi baa marka waxay ku noqotay buur dusha ka saaran oo kusoo dhacay wa jaa wuu yimid baakiyan isagoo ooyahaya ayuu yimid muctadiran oo ka u cudur daaranaya ila nabiyi sal alay wasalam nabiga u cudur daaranaya alla nebi allow ilaahay dembi dhaaf ii weydii khalad baan galay waan halaagsamay isagoo cudur daara oo ordahayuu nebigu yimi salawatullahi waslamu caleyh wax ka sheeg buu nebigu wax ka sheegay salawatullahi wasalaamu caleyh faanzala allahu ilaahay baa wuxuu soo dejiyey man kafara billahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaan aayaddaas wuxuu soo dejiyey oo loogu cudur daarahayo laleeyahay maadaama lagu qasbay oo waxani uu qasab ku yimid oo khiyaarkaaga aadan ku odhanin laguma haysto macnaha sidaasaa lagu leeyay aayaddu waxay ku cadfan tahay aayad hore sida loo badan yahay aayaddii ka horreysay inamaa yaftari alkadiba aladiina laa yu'minuuna biaayaati illah wa ulaa'ika hum lkaadibuun taasay macnaha bedel ka tahay man cid ayaa been abuuratay kafara gaaloobay billaahi ilahay ku gaaloobay min bacdi iimaanihi iimaankiisa kadib ilaa man ukraha ciddii la qasbo mooyaane walxaal qalbuhu qalbigiisu muطma'inu yahay mid xasilan biliimaani iimaanka ku xasilan yani ruuxa been abuurtay waa ruuxa ilaahay ku gaaloobay markii iimaan ula yimid kadib oo ka noqday iimaankiisii ilaa ruuxaasi iimaankiisa ka noqday inuu yahay ruux lagu qasbay oo markaasi kelimadii gaalnimada ku dhawaaqay ama ficilkii gaalnimada sameeyey asagoo qalbigiisu iimaankii ku degan yahy qalbigiisa iimaan baa degan oo qalbigiisa wax isbedela kuma dhicin oo caqiidadiisa isma bedelin tawxiidkiisa isma bedelin laakiin afka uu ka yidhi adinkana waa ka samey ruuxa noocaas oo kaleete sa loogu qasbay kaasi isaga gaal maa macana ayaddaasi marka soo degtay loogu cudur daarayo yacni camaar loogu cudur daarayo wa kaana abu fukayha wuxuu ahaa wasmuhu magaciisa aflax baa la yidhahda mawlan isaguna mawle ayuu ahaa libani cabdidaar buu isaguna mawle u ahaa mawaalidii baa u horreyso waa kii aan soo sheegnay dadkii nebiga raacay salawatullahi wasalamu aleyh markii ugu horreysay diinta qaaday dadka mawaalida baa u badna dadka mawaalida macnaha waxa weeyaan aan qabiil xoog badanna ka dhalanin xoolana aan lahayn dad bulshada dhexdeeda sharaf weyn kulana aan ahayno dadkaa iska masaakiinta yaa u horreeyey dacwada nebiga salawatullahi wasalamu caleyh marka abu fukayha isaguna wuxuu mawle u ahaa nimanka reer bani cabdidaar layidhaha fa kaanuu waxay ahaayeen yashudduuna kuwa xidha bay ahaayeen birijli lugtiisa waxay ku xidhi jireen alalxabla xadhig bay lugta kaga xidhayaan uma markaa kadibna yajuruunahu way jiidi jireen cala ardi dhulkay ku jiidayaan xadhigga inta lugta lagaga xidho lugta la jiidi asaguna dhulku yaalla markaasaa macnaha waxa weeye uu jiidami oo geedku xagani oo jidhkiisa qaar hadhi oo maryo iyagu aysan yani waxa meeshuba olin oo ila aakhiri qaabkaas iyaguna ciqaab jir wa kaana khabaab ibna arata wuxuu aha isaguna mawle ayuu ahaa liummi anmaar haweeneydaas u ahaa mawle binti subaac alkhusaaciya fa kaana almushrikuuna gaaladu waxay yudiiquunahu khabaab kuwa dhadhansiye ay ahayn anwaacan noocyaalo oo min atankiili ciqaab ah noocyaalo ciqaabid ah ayay dhadhansiin jireen ninka la yhaha khabaab ibnu arata ya'khuduuna waxay qaadi jireen bishacri ra'sihi madaxiisa tintiisa ayay qaban jireen fayajriduunahu markaasay jiidi jireen jadban jiidid tinta intay qabtaan bay ku hogaamin jireenoo tintaasaa lagu jiiday wayalwuuna waxay maroojinayaan cunuqahu luquntiisa ayay maroojinayaan talwiyatan maroojin oo caniifatan adag si adag baa intay lugaa isu dabamarinaya luquntaa la maroojin oo laysku laabaya wa adjacuuhu way seexiyeen maraatin mararyaalo cadiidatin oo tirsan marar badan baa waxay ku seexiyeen calaa fihaamin dab multahibatin oo huraysa dab hurahayay marar fara badan ku seexiyeen oo dusha ka saareen uma markaa kadibna wadacuu caleyhi dusha waxay ka saareen oo dusha kasii saareen xajaran dhagax dab inta lagu seexiyo hurahayo oo kulul ayaa haddana weliba dhagax dusha laga saaray xataa laa yastadiica ilaa uusan ka awoodin an yaquuma inuu istaago dhagaxa waxaa dusha looga saaraya inuusan kicin oo uusan dabkan ka kicin sidaasay isagana ku samayn jireen saxaabiga wa kaanat waxay zunayratu zanira gabadha la yidhahda iyo wanahadiyatu iyo wabnatuhaa gabadheedii iyo wa ummu cubaysin waxay ahaayeen gabdhahaasuna imaa'an bay ahaayeen addoommo oo aslamna islaamay raggii baa laga sheekeeyey haween addoommaa oo iyaguna islaamay bay ahayen gabdhahaas wa kaana almushrikuuna gaaladu waxay ahaayeen yasuumuunahunna kuwa ciqaabo ayay ahaayeen kuwa dhadhansiye ayay ahaayeen gabdhaha min alcadaabi ciqaabta xaggeeda amhaala maa dakarna
waxaan soo sheegnay wax la mid wixii ragga aan kusoo sheegnay wax la mid ayay gabdhahana saasoo kale u ciqaabi jireen wa aslamad waxaa islaamtay jaariyatun gabadh oo libani mu'amil qoyskaa u sugnaatay yani addoon ay qoyskaasi leeyihiin ayaa islaamtay wa hum ayaguna xayun waa qabiil oo min bani cadiyin ka tirsan qabiilkaas addoon ay leeyihiin ba iyaduna islaamtay fa kaana wuxuu ahaa cumar bnu khataabin radia allahu canhu cumar ibnu khataab wa huwa isaguna yowmaidin maalintaa mushrikun weye maalinkaas gaal buu ahaa muusan soo islaamin wuxuu marka samayn jiray cumar yadribuhaa mid garaca ayuu ahaa gabadhaas intuu u qaato ul ayuu jafi jiray xataa idaa malla markuu daalo si u garaacay uruguracaya gacantu daali markuu daalo ayaa qaala wuxuu odhanayaa innii lam atruk kama aana tegin ilaa malaalatan daalis mooyaane walle kuma daayeene waan kaa daalay wey kuma daayeene laakiin gacantaa idaashay saas uan jiri wabtaaca wuu iibiyey abubakr ayaa iibiyey yani ciqaabta noocan oo kaleeta waxaa la mida midda hadda lagu sameeyo dadka yani ducaadda iyo dadka muslixiin dadka multazimiinta duqaadda iyo xukaamta maanta jirta ama kuwa gaala ha noqdeen ama kuwa islaam ha noqdeen qaababka hadda dadka muslimiinta ay u ciqaabaan ayaa waxaan o dhan ka cajibsa aad bay uga daran yihin yani qaar koronto lagu cadaabo lagu ciqaabo qaar xiniinyaha laga tumo qaar inta la jabiyo oo macnaha ama gacanta ama lugta laga jabiyo kolba saa loo maruujiyo meesha boorka lugtaasaa loo maruujinaya qaar macnaha waxa weye cidiyaha laga bixinaya qaar waxaa lagu samaynaya jidhkooda in yar loo goynay qaar waxaa lagu dirayaa ey baa lagu diray iyagoo nool cunay wahaakada ciqaabaha lagu sameeyo dadka muslimiinta khaasatan ducaadda ah lagu sameeye maanta lagu sameeya waxay ka daran yihiin kuwii hore o dhan aad bay uga daran yihin saas wey wabtaaca abubakrin allahuma ninkii isdhiibo meeshiisa wa ninkii isagu iska munaafaqeeyo oo yidhaahdo maaragtay anugu yani xaggana waan la noolaan karaa xaggana waan la noolaani ninka noocaas oo kaleeta waa iska suurtagal laakiin ciqaabta noocan oo kaleeta kullamaa ummaddu ay doonayso inay ku laabato mabda'eedi diinta inay ku laabato ay doonayso ciqaabta noocan oo kale waa taala dadka ku samaynayaan waxa wey waa dadka diintu inay soo noqotaan doonaynin ilan meesha rag bay u camiran tahay oo maqaayaddu u shidanta raggii maqaayaddu u shidnay war maqaayadda dhinac waan ka shidan haddaad tirada ka war makaa yeelay wax alla wuxuu doona ku samay marka waxoogaa awoodana waa haya laakiin taa allay noqonay subxana watacala wabtaaca wuu iibsaday abubakr wuxuu iibsaday haadihi ljawaari gabdhaha addoommada ayuu iibiyey fa actaqahunna markaasuu xoreeyey radia allahu canhu ardaa addoommadii ragga ahaa ee la ciqaabayeyna isagaa iibiyey oo xoreeyey odaynimadiisiina waxbuu ku qabtay nebigana wehel buu u ahaa dhaqaalihiisiina wuxuu ku bixiyey in uu meelaha muslimiintu ay ku ciqaaban yihiino dhibka lagu hayo inuu dhibka kaga fiiyo ninka noocaasoo kale ayaa la sinmi kara marka ninkii soo taagi kara abubakar isgarab taagi kara kuma way marka abubakar huwa sidiiq saas waay ummadantadaasa bacda nabiyihaa wuxuu ugu fadli badnaaday wax kale mara waa dawrkan iyo kaalintan uu macnaha ciyaaray waxaan soo marnay radia allahu canhu ardaa in uu raggii mubashiriinta biljanna ahaa ee jannadu nabiga ugu bishaarayey salawatullahi wasalaamu calayhi intooda badan inay abubakar gacantiisa kusoo islaameen bal raggi ugu weynweynaa islaamka ee islaamka wax ka soo qabtay abubakar gacantiisa kusoo islaamay intooda badnaa dhaqaalaha marka halkaasoo kale ku habooya haysigiisuna qiimo ma laha meel kale ku bixintiisana qiimo ma laha laakiin qiimo wuxuu ku leeyahay in islaamka iyo dadka muslimiinta wax lagu darso kama actaqa si u xoreeyey oo kaleetaba bilaalan iyo caamir ibnu fuhayra raggaaba siduu u xoreeyey buu wuxuu u xoreeyey abubakar wuxuu xoreeyey gabdhihii la dhibahayana intuu iibiyey buu wada xoreeyey wa kaana almushrikuuna gaaladu waxay ahaayeen yalufuuna kuwa duuduuba bay ahaayeen bacda saxaabati saxaabada qaarkood waxay ku duuduubi jireen fii ihaabi alibili waalbaqari lo-da iyo geela haragooda harag geel neef geela haraggii ama neef loo haraggii ayaa ruuxa lagu duuduubi inta lagu seexiyo uma markaa kadibna yulquunahu waxay ku tuuri jireen fii xarri ramba cagagubyada kulaylkeeday ku tuuri jireen meel kulul oo macnaha dhulkeedu gubanayo ayaa markaa kadib lagu tuuri meel uu ka neefsadana ma laha oo harag baa isagoo dhan macnaha waxa weeyaan ku duuduuban wayulabisuuna waxay macnaha u xidhi jireen bacdan qaar saxaabada ka midana aakhare oo kale dircan ama yulbisuuna waxay u xidhi jireen dircan diric bay u xidhi jireen oo min alxadiidi bir ah yacni diric bir ah ayaa jidhkiisao dhan loo gelinaya uma markaa kadibna yulquunahu waxay ku tuuri jireen
calaa sakratin dhagax dusheed multahibatin oo huraysa dhagax aada u hurayso meel buuroo dhagax shiilahoo dhagaxeedu uu hurayo kuleylka daraadii ayaa isagoo inta bir loo geliya jidhkiisao dhan bir ku qarsoon yahay ayaa meeshaa lagu fuulay ruux markiisi horaba bir ku jiray birtiina kuleyl la saaray maxaa ka soo hadhay noocyadii ciqaabta way وقائمة المعذبين في الله طويلة ومؤلمة جدا فما من أحد علموا بإسلامه إلا تصدوا له وآذوه تاسولين وقائمة المعذبين ضدكي لعقابي لفتقود قائمة وحل لا ومقعيدة برب ضن إيه اسكده متحول هو لعقابي مقعيه دي إيو لفتقودي في الله إلهي دراجي كوي الله عقابي طويلة ما في الدروي ومؤلمة وانا مت حروتين بدوية جدا آدي روح وحروتين يسوي فما من أحد مجر وعلموها أي أقادين بإسلام إسلام مدينة أي أقادين إلا تصدوا إلا هدوشر تصدوا له الأبن بحن وآدوه وين كده روح مسلمين تكملة وإنه إسلامي أي أقادين مجر إلا هديك ورهلان انتهي معنا وحوي آدم دي عقابي جري سيدا أيضا أي تهي وسيدا الله عقابي حدنا يوم من الأيام diintooda inay dib uga gurtaan mayna ku qasbin ama mid diin doonahayo diinta inuu gala doonayo kama hor istaagin bal waxay noqotay ciqaabtay samaynayeen iyo dhibkay u geysanayeen wuxuu noqday caamil mushajaca shay ku dhiirigeliya inay diintooda ku adkaystaan saasay noqdeen macna yacni waxa weeyaan waxay marka ku tusaysaa dowrkii iyo kaalintii ay soo qaateen unuggii ugu horreeyey ee nabiga rumeeyey salawatullahi wasalaamu caleyh iyo fadliga ay ummaddan ku leeyihiin fadliga ay ummaddan ku leeyihiin yacni diin bislaatay oo rag loo soo dhibay oo lagu soo rafaaday ayaynu macnaha waxa weye midhaheeda iska guranay beerta rag baa beeray annaguna midhihii oo bislaadaan iska guranay xataa qaabkan midhihii loo gurtay inaan garanay midhihii warkaalaya gurtaayo warkaalaya qaataa bay lanleey mana guran naqaano si loo gurtana ma naqaano gurashadeediina diyaar ma rag baana sidan usoo maray oo adduunkoodii oo dhan usoo seegay marka waxa weeyaan ruuxii mabda'a islaamkan ka run sheegaya yidhaahdaay miisaaladan tadaata waxaan ka faa'iidaysaynaynaa waxa weeye rabbi subxaanahu watacaala addoommadiisa hadduu uu jeclaado wuu ibtileeyaa idaa axabba cabdan ibtalaa rabbi waa imtixaana subxana watacala ma gacan gaal baa lagu imtixaani ma gacan muslim sheeganaya lagu imtixaani ma masaa'ib adduunyaa lagu imtixaani faman radiya falahu ridaa waman sakita falahu suqdu natiijadu saas waay ninkii ku raalli noqdoo mabdi'iisa ku adkaana oon tanaasul samaynin ridaha rabbi buu leeyahy subxana watacala ninkii laakiin intuu xanaaqo ama daciifa ama meesha ka baxay oo cadhooda oo dhirfaaya ilaahay cadhadiisuu leeyahay saasuu nabigu lehy salawatullah waslamu caleyh wabillahi tawfiiq sala allahu waslam cala nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi wasalam